وحناهي رفيقيو رسمي لبا اسجعلو رحني وحناهي رالي السيد روحاني وذاتورا. waxyaabo badan oo been abuur ah ayaa laga sheegay lamaanayaasha Haykal iyo sidoo kale boqorada Estelle-ka. Labadan lamaanayaal noloshooda waxay wataan si qurux badan, jawigu waa u wanaagsan yahay, inkastoo 24 saac ugu dambeeyay social media waxaa la isla dhexmaraya been ah kala tagga labadan. Waxaa jira dad badan oo cadow ah kuwaas oo jecel duminta guryaha xalaasha ah, kuwaas isla markaana aad u daneynayaan kala tagga laba lamaano oo nolosha isku darsaday. Boqorada Estelle-ka iyo sidoo kale Haykal ayaan kula wadaagayaa lamaanayaashan waxyaabaha saacadihii ugu dambeeyay la tabinayay ee sidoo kale social media 24 saac ugu dambeeyay lagu baahiyay ayaan waxba ka jirin. isla markaana lamaanayaashan dad badan oo cadow ah kuwaas oo muuqaalo kala duwan oo mar hore soo duubeen dhowr sano ka hor kasoo jara qaybaha hore durbana waxay ku soo faafiyeen YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok-ga. Haykal hadda wuxuu ku sugan yahay Malaysia, boqorada Estelle-ka waxay ku sugan tahay Muqdisho. isla markaana labadooda noloshu waa mid wanaagsan, waana lamaanayaal isjecel. laakiin waxaa jira cadow badan oo jecel duminta guryaha iyo sidoo kale kala tagga laba kastoo isla nool. mar kastoo lamaanayaasha u dhex yaalla wanaag waxaa soo food saarta xaalad cabsi ah kuwaas oo kaga imaata cadow badan, inkastoo ay jiraan dad wanaagsan kuwaas oo ku dhiirigeliyaan wanaagga lamaanayaasha. boqorada Estelle-ka iyo Haykal ayaa hadda waxyaabihii laga sheegayay saacadihii ugu dambeeyay ee qabsaday guud ahaan barta internetka ee kulmisa balaayiinta qof ayaa lagu sheegay in furin ee dalbatay durbana la furayo. erayadaas iyo sidoo kale xogtaas ayaa mid aan waxba ka jirin, waayo lamaanayaashan hadda way wada joogaan, gurigoodana waa dhisan yahay, waana isku qanacsan yihiin. laakiin waxay la kulmayaan cadow badan kuwaas oo jecel guryaha dumintooda iyo sidoo kale kala tagga laba kastoo isku faraxsan, laba kastoo isjecel, laba kastoo nolosha isla wadaagto iyo laba kastoo isdooratay ayay jecel yihiin inay kala tagaan. waase kuwa jecel duminta guryaha kuwaas oo aan arxan laabayaal ah, inkastoo ay jiraan dad Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan, aadna ugu farxa qoysaska dhisan, qaybna ka qaatay inay garab siiyaan, aadna u jecel dhiirigelinta lamaanayaasha qarniga. laakiin muddooyinkan dambe iyo barta internetka ee kulmisa malaayiinta qof 24 saac ugu dambeeyay dadku badi waxay ku wareereen kala tagga boqorada Estelle-ka iyo Haykal. xogaha la wareejinayo iyo sidoo kale muuqaalada isdaba joogga ee laga soo jara qaybo qura isla markaana la isku keeno codad iyo muuqaalo kala duwan kuwaas oo dhowr sano ka hor iska duubeen lamaanayaashan boqorada Estelle-ka iyo Haykal ayaa lagu baafiyay barta internetka. taasi ayaan idin xaqiijinayaa inaysan waxba ka jirin. lamaanayaashan hadda ay wada nool yihiin, xaaladdu ay u degan tahay, wax kala tagaysan ka jirin. halkan jawiga ayaa saxan, laakiin ogow mar kastoo noloshu ku wanaagsan tahay jawigana uu saxan yahay waxaa jira kuwo aanan jecleen oo aanan arki karin wanaagga dadka. fadlan horumarsha wanaagga dadka oo reeba xumaha.